wasaaradda haweenka iyo xaquuqal insaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Jowhar ku qabatay shir looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa kufsiga. Warkaasi waxa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Cabdishakuur Shaasha. qorshaha qaran ee ciribtirka xadgudubka kufsiga waa kulanka wada tashiga iyo dib u eegista qorshaha qaran ee dabargoynta tacadiga kufsiga lagula kaco haweenka Soomaaliyeed oo Jowhar ka socday muddo 2 maalmood waxaana kulankani ka soo qayb galay rag iyo dumar. ujeedada ayaana ahayd in lagu dhiirigeliyo ragga iyo dumarkaba in la ilaaliyo xuquuqda haweenka kadib marka ay dhacaan kufsiyada, iyadoo inta badan lagu dhameeyo kufsiga xeer jajab ay odayaashu isdhaafsadaan. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulankan oo isugu jira rag iyo haween ayaa ka hadlay kulanka waxaana ay sheegeen wixii ay aaminsanaayeen. waa la rabaa qofka marka waxa sheegay waa la rabaa iska oon sheeg lama rabo. qofka waa la rabaa dambiyo galay dambigii bartaas la keenay lagu oofiyo shariicada inaan la sheegayso waxay leedahay. waxa waaye gabadhaas ama qofka tacadiga loo geystay haweeneyda ah muddo 7 oo kaliya ayaa meesha lagu sii haynayaa mase waxa loo sameynayaa advocacy kale ama in shaqo la siiyo meesha lagu xanaaneeyo loona raadiyo cadaaladda ay leedahay. nadiifa cabdi oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waliba agaasimaha jinsiga ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Saadiye Maxamed ayaa ku dhiirigeliyay ka soo qaybgalayaasha in la ilaaliyo xuquuqda haweenka waxaana sidoo kale ay ka codsadeen in la diyaariyo qorshihii lagula tacaali lahaa arrinkan. in la baabi'iyo sameecada gabdhaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed because markii laga dhigo kulligood wax kufsadii wax dila waxaan noqonaynaa waxaan waxba ahayn. waa inaan ka dagaalanaa in ay dhacdo in maalin walba la yiraahdo waxbaa la kufsaday waxbaa dhacay waa fool xumo isagoo guursan kara isagoo tashan kara isagoo dhalatay isagoo dhashay isagoo dhalay ayay habaryar tahay waa mamnuuc. waxaa suurta gashay xukuumadda oo kaashanaysa maamulada markaasi jiray iyo waliba gobolada iyo ururada bulshada rayidka in ay isku yimaadaan ay sameeyaan qorshaha qaran ee baabi'inta tacadiyada kufsiga ee la sheegay. qorshahaasi wuxuu wax walba la sameynayo waxa loo sameeyaa in loo sameeyo waqti laga bilaabo iyo waqtigii la rajaynayo inuu dhameeyo. wuxuu ku waqtiyeysnaa qorshahaasi qaran 2014 ilaa 2016. qorshihii markii la sameeyo oo wasaaradaha xukuumadana ay ka qayb qaateen kuwa line-ka ah gaar ahaan wasaaradaha caafimaadka iyo booliiska oo hoostaga wasaaradda amniga qaranka iyo wasaaradda cadaaladda maadaama qofkii dhibaatada loo geystay cadaalad ay u baahanayso. waxaa suurta gashay in hay-ada iyadoo ay caawinayaan in ururada bulshada rayidka ay kaalin weyn ka qaataan. Saadiye Maxamed Saadiye Burus oo ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda Hirshabeelle ahna siihayaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabeelle ayaa soo jeedisay in la qaato waxa shariicada islaamku ay ka oranayso kufsiga lagula kacayo haweenka. 500 kun oo shilin Soomaali ah oo aan $20 dhamayn waxa la leeyahay gabadhii baartay odaya qaatay xanuunteedii daawadeedii cudurkii wixii ku soo bixi lahaa oo dhan 500 ma daawaysaa. waana hooyo Soomaaliyeed oo bari wiil dhalayso oo ninkii bari dalka difaaci lahaa dhalays oo nabadoonkii u noqonaysa marwo oo bari guursan doono intaas oo dhan xanuunkeeda annagoo wada jir ah aan iska kaashano sharci go'an oo ah ninkii gabadh soo kursado waxaasaan ku dhaqmaynaa waxaana anfacaya waxaan ku nabadgelaynaa waxay ilmaheena wax ku baranayaan aan sharciga aan adkeyn dowladnimada inaan garab istaagno. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee caalamka oo ay ka dhacaan tacadiyada kufsiga ee haweenka lagula kaco waxaana inta badan lagu dhameeyaa xeer jajab kadib marka ay iska arkaan odayaasha labada dhinac. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Jowhar.